madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayay oo hawlo shaqo ku tagay goobo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa garoonka dayuuradaha magaalada Baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay dadweyne aad u fara badan iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada koonfur galbeed Soomaaliya, saraakiisha ciidamada AMISOM iyo saraakiisha ciidamada Soomaaliyeed iyo weliba odayaasha dhaqanka. soo dhaweynta madaxweynaha iyo wafdigiisa kadib oo madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan saxaafadda kula hadlayay garoonka dayuuradaha magaalada Baydhabo ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay socdaalkii ay ku tageen isaga iyo wafdigiisa magaalada Garowe ee maamul goboleedka Puntland iyo gobolka Shabeellada Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliya. waqti badan isay ku maqnayna runtii walaal ku maqnayna shaqo leeyahay runtii halkii hore oo ku tablay Garowe oo lagu hadlayo arrimaha siyaasadda Soomaaliya future xatareero madalla oo wada hadalka runtii wada hadalkaasi wax badan la falanqay kuleysiisi maragtay raadon kuleysatay madaxweynaha Soomaaliya dowladda federaalka ee shirkadaha kursiga شريدة الفيلم والبدن لقطان الرمال الصومالي ولقلدن ولسحن هذا ولبدن وقلدن من هالصحة اللي هي ولسحن إنه بالصواب القبلمي ورمت شركة سيدان فيل هاي بعد نون ولي بابا هالدن عم بناه عمر بعد ولي بابا عم بناه شباب الهوسة ورمت دول شباب الهوسة قبل شريدة الفيل ولي بكوني بالدول لك بعد ولي سنة ولي وين بعد ولي سنة أخذوية ولي سنة صوتن runtii dadweynaha degan gobolkaas eedeedaan ma ilaahay isku leeyahay nagaana waqtigan la roodmi soo iyo walaalnimo iyo dawladnimo iyo waynan badan tusana iyo eedeed raalan ku maamulka koonfur galbeed diyaarna inuu wala qabsado oo la iska talabo oo wala qabado koonfur galbeed horumar shaqo ka wada shaqeeyo diyaaran hayan inaan dhawaayan tusana. Shariif Xasan ayaa sidoo kale waxa uu cadeeyay sida u arko cabashadii ka soo baxaysay bulshada ee ku aadanayd hab dhismeedka maamulka Jubbaland. walaalo badan oo reer koonfur galbeed tirsan jirtay sida maamulka Jubbaland oo baarlamaanka sababisii dadka walbada ku qabaan jirtay taasna wali ka taleynay inuu wada hadal sanad kaliya la dhamaay adduunyada sheegnay dowladda Soomaaliyeed sheegnay madaxda maamulkaasna sheegnay inuu aragtiyada saxda wala cabir صحيح هاينا ممكن أقول لك قرضاوي تاريخنا لي تاريخ تسنى تبني بدل كورنا تاريخ أصلنا نسوي بي كورنا تدقنا اللي يكر كورنا تدقنا اللي كورني كورنا لك بدي كورنا كذا هذاني أنت هذا نولي بعمل سيناريو والبنا نقرر دونا ما عملك كوفر كل نولي بأصله أنت هذا نقرأ دونا ومدل كان دونا لا هذا دونا سيد هليسكي كان خور هاي kaasoo hay inii wala ka beega oo nagadaay deegaan maamulka la dhisano nagado maamul qabiil nagadaana maamul deegaan nagado dadka dhulkaas degan degmo kasta tuulooyinka iyo degmada dadka degan oo la xisaab wali rajeynayna caalamka inay hadda dhawayto dawladda Soomaaliyeed kul hadalna barnaamijka Soomaaliyeed ma nagaan dadka soo joohay dawladda Soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha aragay وين تسنن يتسموا يونيدي ولا خبر مركز إذا سنكمل ولا يعني هذا الفكر لأن الفكر إلى الدرسونا جي ولا وأنا ما سنتي سلام. حسيا شيء مدحيناه كوفر قلبي الصومالية شريف حسن شيخ آدن أيام مركي أبوه رئيسي كهدي أبشرة دتك الدجاء وبلد جبويكا سدوا كلنا دوان مقالة بينما يكاد عين دبت بحجو لوجو سهر جيدو عبد سمات كا معمول كا جبلان أبشر محمد نور مانديلا رويال تي في بيت